ويورك بحيانا وين نجي والمادر ويديني xilliga shubaasha waxaa jira heese gaar ah oo aan lagu heesin waqtiga dheeranka iyadoo ninka kaalinka u jooga uu ku luuqeeyo hadba heesta uu isleeyahay waa ku soo hirin kaalinkana waa ku soo gelin ceelkan lama huro lagama maarmo ariga iyo dumarkaa biyaha loo qaadaa geel biyo looma qaado ceelkan geelaa cabba haddaayoo kale xilligu markuu adkaado bay xooluhu yimaadaan laakiin xilliga kan geelaa iska leh heesaha geela abwaan laga soo dheegtay ma jiro sida suugaanta kale waana abka soo gaar waxayna ku socotaa qaafiyad la mid ah tan suugaanta sida gabayada iyo heesaha oo la og yahay cidda ay ka soo jeedo ama curisay geelu hadba hees buu leeyahay ceelka markuu soo galo wiilka wadaa wuxuu yidhaahdaa cilmi baa ku jira heesta geela adigu haddaad wadaad baa tahay waa ku aqaana ina geellow haddaad kitaabka sii raacdid heesta geeljiraa cilmi baa ku jira goortuu yimaado aan hubanno hubka dhiganna in yar loo hogo markuu jeesto durba mays rogay baarqabkii iyo barmiyaa haray haa marka uu kaalinka soo galo waa nin iyo xeeshii balse waxaa jira rag ku fogaaday ama looga fooray jiibka iyo luuqda haddii ay dhegta farta geliyaanna aysan hashu kaalin kale jalleecayn way naag madow hoy maarya badan bay hoy maahis aragtayo hoy maaga tayaday maahis aragto maaga tayaday markaasu wuxuu ku leeyahay way kaala koreey hoy koobaneeyey way kaatameeyo hoy kaalinkaymow halkan waa ceelka qabaal waana ceelka ugu hooseeya dhulka daranleyda wuxuuna garowa ka xigaa jihada bari iyadoo xoolaha ay uga soo arooraan deegaanada loo yaqaan nugaal cadduun iyo hawd biyihiisu waa duruq kharaar ah laakiin xoolaha ka cabba waa samoolad haddaan jiro iyo sanaxuma ku jirin aaran bulaylow ma isu baxayo badaleer iyo bustamahuwadi banka ma u baxayo ma bakooliye waa goorta tifaaxoo jeesto casarkii markay tahay jawaab baa lagu qaadaa cagfa kala rogo cirka weyn bogo cagta weyn dhigo waad caraabina caloosha u sheeg hawd bay u fulaysaa meeyaha waa lala dardaarmayaa haa heesaha marka haddaa fiirisid cilmi baa ku jira heesaha waxaa sameeyey geesiyiintii waagii hore soomaaliya oo geela soo qaadi jiray soo dhici jiray oo dhulka ugu tegi jiray heestaa nimankaasaa sameeyey ragga kanuna waa siyaadsaday haa waxbaa lagu darsaday haa ceelkan sidaa markaa ceelkan anigu soo gaaray odayaashii geela soo dhici jiray baa ku heesaayey sooma dhuuman oo sooma dheelman ee wiilo dhaladaa intay dhaarteen dhuuxa webi iyo dhalaan ugu tegey oo ka soo dhuray haa sooma dheelman oo sooma dhuuman haa ee wiilo dhalada baa intay dhaarteen dhuuxa webi iyo dhalaan ugu tegey xilligan xoolaha ka cabbaya waxay ku jiraan jiilaal jimcoon oo dayrtii hore seegseeg ku ahayd laakiin waxay shansanayaan gurigii ka horreeyey oo ahaa mid aanana marka uu fan jeediyo nin weliba wuxuu dhangadda la dhexgalaa geeliisa wuxuuna ku sabaaliyaa kaalinka si uu u rakaato kadibna wuxuu ku horraan qaadaa wadagaashii uu ku soo arooray qaar waa ladaab oo nugaasha kama baxo halka geela hawdka loo caarad qaadayna uu muddo biyaha ka maqan yahay nin baa jira hadduu u jawaabo oo dhegta farta u geliyo geelu meel jooga ka soo duduranaya dhegtaas haatan farta loo gelinaya dube yemasana ye marka mar hadduu ku jawaabo macnaa meel fog masaafo dheer
geela waxa tiriya waa abwaanin baa samaysa si u badan tahay ninkaana dirgarkii taagan cali ragga geela ku luuqeeyo kamid yahay oo soo saara heesaha geela sidaan wada ognahay marka dee heesta geela Soomaaliya xataa Carabiga loogu heesaa moogta cali faarax wuxuu kamid yahay tabcatada geela kuma dheelmo geeliisa miro rag hore ka soo maaxday balse isaga ayaa curiyay heese uu isleeyahay geel jirka ka dameeya haleeladiisa ha ku raac waagi hore aabaha iyo wahba geel badan lahaan jiray anna waa ku aababay waxa kamid ah oo kuwaan ugu aan sameeyay janow iyo xoor jiiriya cadeen isku wada jiray jaawo keegay waxa kamid ah madax xululkii maad shalay galab markii uu kaalinka soo galo madax xululkii maad shalay galab maqli meelina bal mar nagu celiyo maqashii adoo degashadayo daryuurura ninku daba sugay looma dirshay damba wuu tagay waa marka geelaagu soo galo geel yar uu kugu daba horan yahay waxa loo dhahayaa or la qaadiyo oo hayee dhaba adun labadaba amireeyo aamin raacay waa isku qaadno waa isla qaadanay inta waxaan ula jeednaa inuu biyaha ku cababaan uga jeednaa iyo quruxdiisa iyo jaraftiisa uusan maagan